السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال ميل والبو aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena Hikaache. maanta waxaan qaadanaa 10 English. 10kan wuxuu noqon doonaa 10kii labaad. waxaan rabaa in 10ka u guda galo. 10ka aan maanta qaadanana waxa weeye waa 10kii labaad waxaana la yiraahdaa introducing others. others maxaa laga wadaa waa dadka kale. introducingna waa isbarid. dadka kale ayaad isbaraysaa. laba qof oo aad labadoodaba taqaanid ama midkood aad taqaan ayaa isbaraysaa. 10 كوري waxaan soo qaadanay introducing yourself sidee naftaada dadka kale u bari kada hadii aad 10ka soo daawan fadlan soo daawo 10kaas wuxuu ahaa 10kii koowaad 10kana waa 10kii labaad kiibuuna ku xiran yahay hadaad 10kaas si fiican soo fahamtay kan waa ku fududaanaya 10kan aan maanta u guda galno 10ku wuxuu ku leeyahay have you two met each other yani labadiinu ما كلانتين هلاي ما كلانتين هذا هالكان وحوي باهنا وحوي عطينا 10 مت وحي كإماتي ميت كلان متنا وحوي كلاني أما كل ماي لبقف كل ماي هراي وكل ماي وقت تجيب على جهالية each otherنا متبمت كلام مرك have you two met each other لبدي إنه ما كلانتين يعني لبدي إنه ما كلانتين يعني لبدي إنه نقف ما كلانتين كلانكم حلقة هذا كلان إسبرشة أي على هذا لبدي إنه نقف هراي ما كلانتين أي لمعنة تحل لبد شو بدأ يلقى بحين كرا سؤاشان جوابت كواد وحين نقول كذا يعني لبدا نقف إسيقانين أو هراي وكلمين جوابت لبدا وحين نقول كذا إن إنسان هراي وكلمين 10 كانوا وحوي إن لبقف إن ضد كلا إسبرنو marka waxaan 10 kan ku beeskreenaa insha Allah laba qof aan hore isku noqon marka waxaan ka soo qaadanaa labadan qof inaysan hore isu aqoon waxaan rabnaa inagu inaan isbarno anaga dhexdhexaadka marka have you two met each other labadiina hore ma u kulanteen ama ma kulanteen ba su'aashu tahay marka waxa laga jawaabay no maya we have not ma nu kulmin waxa dhigi kara no maya we haven't we have not معناها وهل أري أما معناه اسكو ماذا أيه كتبينيان لكن لبا قاب أو كلا دوان أيه لو يري no we have not إنا إرادو no we haven't إنا إرادو واسكو مد لبا الشيء واسكو مد قرالك واسكو مد كلي وحو كلا دوان قاب كلا واقع رياضة معناه هذا وحوي ما نقول من مايا no وحي تاغن تاي مايا ما نقول من يعني لبا يدان قف هوري وما نقول من هذا واسبرنا من لبدان قف إلا هوري وما يكون منه عبدي يا عاشا يا لك لي هذا لبدان قف وحرمنا إن أسبرنا وحن أديكسنا هل أري أو إنجليش أري كان هوري ومسوق هذا ني قاب كله استعمال أسقو عن وأديكسنا أنغو نفتنا كبرنا ضدك لا أيان سو أديكسنا لكن سمانت وحرمنا إن لبقف اسكبرنا أري كان لفتيس وحنا صوش شجني إن 10 كان 10 كوي حاجة أري كان أديكسن دون أري جالس وحوي this is waxaan ku soo sheegnay markii hore in yiraahdo qofka kula hadlay marka email isticmaalaysa ama fariin dirisid ayaan soo sheegnay in la isticmaalo marka abdi ninka la yiraahdo iyo caasha ayaa isbaraynay abdi aniga waxaan leeyahay ana u dhaxeeyay macna ana waxaan leeyahay abdiyo this is caasho tani waa caasho ogow ereyga macnihiisu isku bedelo markaan lab iyo dhadig u kala isticmaalo abdiyo this is caasho tani waa caashoy ama caasho oo macnaheedu yahay caashoy this is abdi kani waa abdi this waxaan niri marna waa kani bay tusinaysaa marna waxay tusinaysaa tani inta badan waxay ku xiran tahay cidda laga hadlayo marna caasha laga hadlaya marna abdi baa laga hadlaya hadii caasha laga hadlayo waxa leeyahay tani sababtoo waa dhadig weeye hadii ama waxa abdi oo kala laga hadlayana waxa la isticmaalayaa kani haddii shay laga hadlayo shaygaas waxa qaabka Soomaaliga loo isticmaalo ayaa loo eegaya marka haddii tan lagu tilmaami lahaa iyo haddii kan lagu tilmaami lahaa waxay ku xiran tahay shayga laga hadlayo marka abdi iyo mataqaana sentence-ka intiisa kale waxa u dhaxeeya hakad wuxuu sheegayaa sentence-kan inuu kala hakad leeyahay marka Englishka la akhrinayo oo qofku ku hadlayo iyo marka la qorayo waxa jira shuruuc la raaco shuruucdaasi waa muhiim halkan oo kale waxaan ereyga abdi ah ku bilaabay capital letter caasho sidoo kale waxaan ku bilaabay capital letter meel walba caasho ku jira iyo meel walba abdi ku jirto waxaan ku bilaabay capital letter waxa laga yaabaa in isweydiinaysa capital letter maxay tahay niyo ma garanaye capital letter waxa weeye xaraf weyn ayaan ku bilaabay
cabdi caasho labadoodaba xaraf weyn ayaan ku bilaaba meel walba oo English la adeegsanayo magac noocaas oo kale ah magacaygoo kale magacaagoo kale labadan qof magacoodoo kale qof kale oo Soomaaliya magaciisa oo kale meel walba oo English la adeegsanayo ama word bilowgeed ha noqoto ama bartamaheed ha noqoto ama dhamaadkeed ha noqotee waxa la adeegsanayaa xaraf weyn ayaa lagu bilaabayaa qofka magaciisa sababtoo ah magacu inta badan gooni wuxuu u yahay shakhsi gooni ah marka cabdi ninka la yiraahdo ayaan waxaan barayaa gabadha caasho la yiraahdo marka waxaan cabdi baan la hadlayaa haddaan mataqaanaa eegayo san labadii qof ila joogaan cabdi baan fiirinaya waxaan ku leeyahay cabdi this is caasho tani waa caasho cabdi baan la hadlayaa marka tilmaanta maxaan ku tusayaa gacanteeda waxaan ku tusayaa caasho ugu tilmaamaya caashana waxaan ku leeyahay sidoo kale caasho this is cabdi kani waa cabdi marka caasho iyo cabdi waxaan isku baray this is oo marna loo adeegsanayo tani marna loo adeegsanayo kani macnaheeduna yahay inaan qof kala barayo aniga ayaa u dhaxeeya labadan qof hore iskuma noqon magacyadoodii ayaan sheegaya labadooda magacyood ayaana isku baraya marka waxa jira inta badan labada qof markay kulmaan waa la kala tagaa cashir ka horeeyay waxaan soo baranay qaab labada qof markay kala tagayaan ay isku nabadgeliyeen yacni nabadiino marka la leeyahay Soomaaliga nabadeey waxa way kulan dambe waxaas kala marka la leeyahay English kana tabtaas kala leeyahay marka maalintii dheet waxaan soo baranay nice to meet you iyo nice to meet you too labada macnahoodu waa soo sheegnay qaabka loo isticmaalo waa soo sheegnay muhiimadda ay leeyihiin waa soo sheegnay laakiin maanta waxaan baranaa wax loo yaqaan it is a pleasure to meet you maalintii dheet inta kaliya maxaa u farqiga u dhaxeeya fiiri nice baan intaan ku bedelay it's a pleasure baan waxaan ku bedelay nice to meet you waxa way waa isla intii marka it's a pleasure maxaa laga wadaa farxad ayaa laga wadaa it's a pleasure to meet you waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo maalintii hore waxay ahayd kulan wanaagsan maanta waxa weeye waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo it's a pleasure to meet you waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo qofku muxuu uga jawaabayaa the pleasure is mine يعني فرحة أنا جالس كله معناه هذا هو أنا جالس تجيجو وأنكون فرح سنة أنا كل ما حنصبر أنا اللي بقف وأن هراي وكل من وحدا كل ما عيان إسبرني وحنسوي أديك سنة وحنصبر أني قاب كل سكبر كرا أنا جو أديك سنة هل أري this is ومرنا الله معنيه سنقنا كان مرنا معنيه سنقنا تن حرجني 10 كان واحد بدن إنه كوسو سيادي 10 كان يا 10 هذا صوص عضبة هدي أتربتنا لسعتد كنالك كصابير وحي سؤال أتقبتنا قيبت كومنت فلانقين تنوغرهب وحي متقانا هدي على 10 إنجليش إن أتبرتد وسيقوني شخصيا أبرتد أربتد وأنا لسه حريري كرتا متقانا تيليجرام لينكيس أيا وحكو حريني هاي أكون كان يوتيوب شانلك مركا لينكاس راعسا كدبنا وحوي تليجرام كايمانسا فرين بالكا ايغا سو قرسا هكاسان كودا هادلنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.